guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Soomaaliya heer federaal ayaa soo jeediyay dalab ah in kuraasta hoob 138 hoob 71 ee Galmudug laga soo doorto loo xiro qoondada haweenka si loo gaaro saamiga 30% ee Galmudug laga doonayo haweenka. kuraastan ayaa laga kala leeyahay magaalooyinka Guraceel iyo Cadaado waxaana ku kala fadhiyay Siciid Nuur Garwiish oo ku fadhiyo hoob 138 oo matalaya Guraceel halka hoob 71 uu ku fadhiyay Saabir Nuur Shuuri oo matalaya Cadaado. kursiga hoob 138 haatan waxa ku tartamaya musharaxiin badan waxaana beesha iska leh la xusay inay siiyeen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u gaaray magaalada Dhuusamareeb shalay sidoo ugu tartami lahaa kursigaasi. halka kursiga hoob 71 ay ku tartamayaan Saabir Nuur Shuuri hore ugu fadhiyay Cabdulqaadir Cali Cumar iyo shakhsi kale iyadoona hore loo shaaciyay balse mar kale guddiga doorashooyinka Galmudug ay dib u dhigeen oo sheegeen in la buuxin shuruudihii laga rabay musharaxiinta u tartamayso. waa laba kursi oo musharaxiin cadcad oo saameyn leh ay ku tartamayaan lamana oga dalabka guddiga doorashooyinka heer federaal sida loogu hoos qaadi doono. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kursiga hoob 138 ku tartamayay ayaana hore filla Soomaaliya waxay kula jirtay dagaal xoogan sida aan lagu soo saari lahayn. halka sidoo kale 71 oo Saabir Nuur Shuuri mar kale uu doonaya dhankiisa cadaadis xoogan la saarayay oo ah inaysan ku soo bixin maadaama 4 sano ee la soo dhaafay oo qayb ka ah xildhibaanada aadka uga soo horjeeday ee ka aragtida duwanaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ka codsaday guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha Galmudug iyo xafiiska ra'iisul wasaare Rooble iyo beelaha iskale kuraasdaasi in ay codsigooda fuliyaan isla markaana loo xiro qoondooyinka haweenka si loo buuxiyo saamiga 30%. siyaasiga xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahna musharax madaxweyne oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa shaaciyay inuu kursigaas u tartamayo isla markaana uu doonayo inuu ku matalo bulshada iyo deegaanka 4 sano ee soo socota kana mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad isagoo ilaa xalay maantana kulamo ka waday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. halka kursiga hoob 71 ee laga leeyahay magaalada Cadaado isla gobolka Galgaduud ilaa 3 musharax oo u tartamaysa ay ku sugnaayeen maalmihii dambe magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug balse guddiga doorashooyinka Galmudug hore u shaaciyeen waqtiga la qabanayay taasoo suurtagal weysay maadaama la sheegay shuruudihii loo baahnaa inaysan buuxin musharaxiinta ku tartamayso haddana dib ayaa loo dhigay. soo jeedinta guddiga doorashooyinka heer federaal oo ah in labada kursi loo xiro haween si loo bixiyo saamiga 30% ee haweenka ee Galmudug ayaa la ogeyn sida uu suurtagali doono maadaama kursiga hoob 138 aysan ku qornayn qof dumar ah. maalinta Axadda ay soo socotana doorashadiisa ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb waa haddii aan wax laga bedelin. halka kursiga hoob 71 dhankiisa la qaban doono maalmaha soo aadan sida aynu xogaha ku helayno kuwaas oo guddiga doorashooyinka ay shaaci doonaan. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaana xusay in maamulka Galmudug uu yahay maamulka ugu hooseeya dhanka xildhibaanada ee qoondada haweenka xildhibaanada laga soo doortay deegaan doorashada maamulada isla markaana loo baahan yahay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka ee deegaan doorashada maamulka Galmudug. inta ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintan gaarka aad kala socoteen daawadayaal channelka wararka ee Somali Barays. fadlan muuqaalka haddii ku soo gaara si share garay la wadaag saaxiibadaada kale page-keena ku soo beer si aad u hesho xogaha aynu halkan ku baahino mahadsanidin.